madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi oo maanka ku haya horumarinta dalka uu hogaaminayo ee Soomaaliland kana jawaabaya baahiyaha kala duwan ee shacabkiisa iyo adeegyada aasaaska u ah noloshooda ayuu si rasmi ah u dhagax dhigay bilowga mashruuca dayactirka ballaaran ee jidka isku xidha tuulada Xamaas iyo Hargeysa taasoo ay wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ee Soomaaliland ay gacanta ku hayso dayactirka iyo ballaarintaasi mashruucaasi uu madaxweynaha Soomaaliland si rasmi ah u dhagax dhigay ayaa laga maalgelinayaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee magaciisa loo soo gaabiyo SDF waxaana dayactir lagu sameyn doonaa 30 kiiloomitir oo ka tirsan inta u dhaxaysa tuulada Xamaas iyo Hargeysa waxaana la rajeynayaa in dayactirkaasi uu wax weyn ka tari doono xaaladda wadada isla markaana ay yaraan doonto waqtiga isu socodka magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa waxaana la filayaa in mashruucaasi uu ku dhamaado muddo 8 bilood ah madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Silaanyi ayaa markii uu gaaray deegaankaasi Xamaas hiba meeshii barbilago u ahayd mashruucaasi waxa uu si rasmi ah u dhagax dhigay bilaabitaanka jidkaasi maadaama uu lafdhabar u yahay isu socodka bulshada Soomaaliland iyo qaybaha kala duwan ee dalka madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu dhagax dhigay waxa uu ka qayb galay xaflad loo sameeyay bilaabitaanka jidkaasi waxaana kala qayb galay gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye sharaxa madaxweyne ee xisbigaasi xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka heer gobol iyo degmo ee gobolkaasi Saaxil iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay maareeyaha wakaaladda horumarinta Soomaaliland mudane Xasan Cali Cismaan waxa uu ka warramay dhisitaanka wadadaasi mashaariicda socota oo mashruuca maanta aan joognaa uu qayb ka yahay hay'adda horumarinta wadooyinka mudane madaxweyne maalintii aad aasaastay 2012 ilaa maanta waxa uu qabsoomay runtii wax weyn oo lagu faani karo oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii meel weyn kaga yaala sidaan ay la muuqato dad badan ay la wadaagaan mashaariicda inta ay hay'adaas dhisnay dhamaaday waxa kamid ah wadada isku xidha Dilaboorama way dhamaatay 24 kiiloomitir hay waxaa kamida maxaan ku raahdaa inta Xamaas Berbera oo hore u dhameynay ayaa kamida waxa kamida Kalabayd Wajaale oo 20 kiiloomitir ahayd baa iyaduna jirta wadooyin kale oo socdo qayb dhamaadeen qaybana ay qabeen yihiin way jirtaa barasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf iyo maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Ciidin oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa gobol ahaan soo dhaweey waxaana uga mahad celiyeen madaxweynaha Soomaaliland mudane madaxweyne horta aad baan ugu mahadnaqaynaa Xamaas iyo Hargeysa waxay ahayd meelaha ugu dhibaatada badan leh ee shilalku ku dhici jireen ee dhibtu naga haysatay gaariga godadka sidoo ugu dhacayo oo ka uga bayrayo ayay shilalku ugu kala badnaayeen horta aad baan ugu mahadnaqaynaa wadadan iminka uu dhagax dhigayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa wado ka qiimo badan wadooyinka inteeda kale oo dhan oo qaranka iyo dalkaba ugu fadhida gaadiidka mara ee u kala goosha Berbera Ethiopia ma Hargeysa qura waa mid aan la qiyaasi karin waxa weeyaan waxay u soo kordhinaysaa gobolka Saaxil waxay u soo kordhinaysaa dhaqaale fara badan wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Cali Ismaaciil Xuseen Cali Shombe ayaa sheegay in mashruucani uu muhiim u yahay horumarka ganacsiga ee Soomaaliland iyo wadamada jaarka wadadan imika aan joogno maanta ee u dhaxaysa Xamaas ilaa Hargeysa waxa la dayactirayaa 7 kiiloomitir ay dhan tahay kolka la isu geeyo guud ahaan muhiimadda ay wadadan leedahay waa wadada Soomaaliland ku xidha wadamada Geeska Afrika kuma koobnay ilaa Hargeysa wadadani waxay ku xidhanaa ay nagu xidhaysaa waana wadada u muhiima dhaqaalaha horumarinta wadana horumaro alla hadii aan la hagaajin wadooyinka iyo wax soo saarka waxaana tusaaleedan ay tahay xukuumadii wax qabadka mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan wasiirka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka Soomaaliland oo ay hoos yimaadaan wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay mashruucan ballaaran ee dayactirka iyo ballaarinta lagu sameyn doono waxaanu sheegay in mashruucani uu yahay mid guuleystay wasiirku waxa uu ballan qaaday inay ka go'an tahay dhamaystirka wadooyinka kala duwan ee dalka gaar ahaan inta ay maamulaan wadada Berbera
iyo Hargeysa isku xidha qaybtii labaad oo ku joogtay Xamaas oo ka soo bilaabatay Berbera iminkana noqon doonta 870 kilomitir oo iyada lafteedu laba faysa oo 330 kilomitir iminka hadda la dhaqaajinayo 35 kalena uu hore u dhisnaa oo isku xidhkeedu noqonayo 870 kilomitir aad iyo aad baa madaxweynaha ugu faraxsanahay inaad maanta mashruuca intaa leeg ee qiimaha leh aad halkan nagala soo qayb gasho oo aad dhagax dhigto furitaankiisa laakiin waxaa madaxweyne farxad weyn noo ah in mashruuca qaybta loogu talagalay waddooyinka uu aad iyo aad u najaxay oo guulaystay oo weliba qaybta ugu muhiimsan ay heshay gobolka Saaxil gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in mid loo noqdo horumarka qaranka Soomaaliland waxaanu shacabka ugu baaqay inay muruqooda maalkooda iyo aqoontooda ay isku geeyaan sidii qaranka Soomaaliland uu horumar u gaari lahaa waxaanu soo dhaweeyay mashaariicdaasi ballaaran ee dhinaca wadooyinka waxaan u baahanahay in ay mideyno qof ahaan fikirkeeda oo labada qof oo socda aanay isu maqnaanayn ay isu maqnaadaan labada degme isaga yaalaa inay isu maqnaadaan ee aanay isu maqnaan oo aanay kala shakiin ay isaaminaan labada gobol la mid marka waxaynu gaaraynaa inaynu wax wada qabsanno oo xoogeenna iyo aqoonteena xoog soo baxaan waddadaa maanta dhisaayo inta badan waxa lagu dhisay in laga haysan dhagax ciidda biyaha aqoontii injineeradii waxa naga maqnaa wax madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda uu hogaaminayo ay ka go'an tahay waxyaabaha aasaaska oo nolosha gaar ahaan wadooyinka farxad weyn bay tahay inaan maanta ka soo qayb galo dhagaxriga mashruuca dayactirka wadada Xamaas iyo Hargeysa road wadadaasi waa waddo aad iyo aad muhiim ah isgaarsiinta qaranku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dal u baahan yahay ilaahay mahadi weeye inaynu ku faanino inaynu maanta wadooyinkeena aynu dalka u dhisayno iyo isgaarsiinteena hore u marinayno ay tahay tallaabada ugu horreysa aynu qaadinay dowladda culayska weyn saarayso miisaanna ay samaynayso culayska weynna ay saarayso inay tahay Xamaas iyo wadada aynu dhisayno maanta isgaarsiintaas ay door weyn ku leedahay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu guuleeyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu isgaarsiinteena aynu midaynu ka faa'iidaysano ay noqoto dawladuna waxa kala hadhaysaa ma jirto itaalkeeda wixii qaban karta way qabanaysaa insha Allah ilaahay uu guuleeyo geesta kale wasiirka wasaaradda hawlaha guud guryeynta iyo gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa madaxweynaha Soomaaliland uga warhamay gaadiid kala duwan oo loogu talagalay wadooyinka dalka in lagu dhiso oo ay soo kordhisay wasaaraddiisu waxa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay madaxweyne in gaadiidka culus 24 tan ay isgarogooyinka ay cusub oo la sameeyay gebigoodaba 3 bilood ay soo dhaaf inay maanta ka hawlgelayaan dhamaystirka wadadii ballaarneyd ee madaxweynaha dhagax dhigtay ee wadada Ceerigaaba Burco oo hadda gebagebo ku dhow gaadiidkuna insha Allah uu noqon doono gaadiidkii dhameystiray